وعلي سنبضي أضعانك كوأخين تعب عيبي أي مريض وعلي سنبضي أضعانك كوأخين شعب عيبي أي مريض بساعرك وفحدك تقو عنتهي وعلنك وينا وحدودهين صوبونيك اسمايو سيري بدوينيو لما سين غيرك بيرها سنتهذا لما سين غيرك جلبي يسلبونينا والسبت برواقو روحي سيارتي سكراس كمبوني وبوالي يساكو باردير سومرا حدي علاديو جبوحي نسو مري جائي فوياتو جدكي نبات قادو عدنا وجوج الميسي جدكي فجيريني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر. صدق الله العظيم. بارك الله فيك يا شيخ رشيد. هدنا وحنقصوا لوينا يا عبد الرزاق أسد عبد الرزاق أو كميدا قبان قابياشي حفلة شرفت لعاو أسكوغنمت أو إسلام مركزنا وربحين كوبان كسين دولا متقانا قدوميها جوبادا متقانا هوسي سان دييغو iyo dadkeeda sida yihiin ku soo loowaso Cabdirasaaq. mahadsanid cali xareed dhammaan aniga ku hadlaya magaca guddiga qaban qaabada shirkan waxaan mahad ballaaran u soo jeedinayaa dhammaan gabdhaha iyo odayada iyo dadweynaha reer San Diego sida fiican uga soo qayb galay caawa xafladan aynu ku soo dhaweynayno Cabdirashiid Cali Gooni gudoomiyaha Jubbada Hoose ee ismaamulka Jubbaland ee Soomaaliya. ajaal gudoomiye ku soo dhawow magaalada San Diego haddaan warbixin yar oo kooban kaasiyo San Diego waxay dhacdaa Southern California gobolka California qaybtiisa koonfureed oo ah qaybta ugu weyn Los Angeles, San Diego iyo Orange County. waa countiga lixaad ee ugu weyn America marka county ahaan la yiraahdo. Soomaalida San Diego waxay bilowday inay soo degaan dufcadihii ugu horeeyay ee qaxootiga 1992gii ayay yimaadeen inkasta oo jireen saraakiil tababar ciidan u timid oo ka soo horeysay qaxootiga oo arday macallimiin maamul dhammaantoodna u badan Soomaali. waxaa kale oo ay leeyihiin Soomaalida San Diego laba masaajid oo iyaga u gaar ah oo Soomaalidu dhisteen ay gateen oo iyaga u gaar ah
laba mool bay leeyihiin oo haba yaraadeen laakiin laba mool bay saas kale leeyihiin businessyada professionalka meel aysan ku jirin malaha xagga ciidamada nabadgelyada 4 police officers oo Soomaaliya ayaa San Diego joogta marka Soomaalidu horumar la taaban karo ayay ka sameeyeen ku soo dhaw San Diego waa ka dadka San Diego maasan محمد شيخ حرسي فليتفضل محمد شيخ حرسي بسم الله الرحمن الرحيم دمان مروين مدنية مروين دتك رير سان دييغو جالية دهلكاتا دقن وحان مهد بلارن مركو روغا علينينا كقيبقالك يكسو قيبقالين سيدا وناكسن مناسبة دان لوغو تلقالي إن لوغو سو دويو مستر عبد الرشيد علي قوني oo ah gudoomiyaha Jubbada Hoose gooni oo runtii naga mudan inaan sidan iyo si ka wanaagsan ba u soo dhaweyno maadaama uu ka yimid dalkii Soomaaliya isaga oo waliba waxyaalo fara badan oo qiimo leh aanu aragno inuu priority leeyahay dad ka kooban ilaa 30 iyo dhowr gobernatore oo dalal kala gedisan ka yimid ayuu keligii Soomaali ka ahaa oo laga soo select gareeyay Soomaaliya oo dhan gudoomiyaha Jubbada Hoose aqoontiisa dadnimadiisa maamulkiisa wanaagsan ee gobolkiisa mataqaana uu soo maamulayay markay arkeen dalka Mareykanka lagu soo dhaweeyay si ay uga faa'iideystaan aqoon kororsi maamuladoodiina dib markay ugu noqdaan ay maartay ugu faa'iideeyaan dadkoodii taas waa xurmo gooni ah midda labaad waxa weeyaan anagu reer San Diego waa markii koobaad oo qof mas'uul ah oo ka socda Jubbaland uu noo yimaado qofkii labaad uu noo yimaado way San Diego way fog tahay all the way waxa weeyaan westiga dalka Mareykanka dhacda madaxda Soomaaliya ka timaada ama Afrika ka timaada waxay ka noqdaan Minneapolis meelaha markay joogaan bay badaalayaan oo dib ay isaga noqon laakiin isagu uu noo yimid aad iyo aad buu u mahadsan yahay waxaan u sheegayaa gudoomiyaha San Diego sida Asad warbixinta uga dhiibay waa magaalo dad Soomaaliya oo dhan ay degan tahay way waa dad Soomaaliya oo midaysan way waa dad aan lahayn cudurrada ku jira gobolada qaarkood yaala usan oolin way waa dad jecel weeye Soomaali oo mid oo sharaftii ay lahayd inay soo noqoto jecel way gaar ahaan Jubbaland Jubbalandina runtii xogtiina lama mooga iyada oo aan ognahay meelihii dhibaatadii ugu badnayd soo martay dagaalkii dadka baabi'iyay ee qabiilka ahaa meelaha ugu adkayd ee dhibaatadu ay ka soo martay haddana wali xanta aan maqlayna ay tahay inaad meelaha ugu roon ugu nabadgelyo roon aad tihiin saa darteed waxa weeyaan jaal gudoomiye warbixinta Asad hore ku siiyay baan mid lamid ah ku siinaya San Diego dad Soomaaliyeed oo midaysan baa jooga waad ku soo dhawaan kulay wixii ku saabsan meesha aad ka timidna warbixinteedii adiga baanu ka rabnaa sidaasaan anigu ku soo dhaweynaa ku soo dhawow aad adiga oo mahadsan محمد شيخ حرسي هذه أبو مرسين هاي هذا وحنو يا أبوان محمد هيرت أو تحير أو قبي أمارت نوتريو محمد هيرت كسولو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على من لا نبي بعده أما بعد حفلة دورنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آدي بدو شرف بلنتي مراباتك وحانس آدي أسلام يا أسود وين يا قدوميها شبلان يا وراني قبل كشبرة هوسي آدي بأمها تسيهاي وحو نوغا في عينها كوا بدن أو كلا أو intay markay wadankii ka yimaadaan mana sooto iyo halka intay yimaadaan dib isaga noqda halkan waxaa jooga bulsho leeg inta
labadaa tuule ee mataanaha ah in ka badan baa halkan joogta waa meesha asalka u ahayd Soomaalida dalkaba timid aad iyo aad baan kuu salaamayaa waxaan moodayay gabayadiiba in laga baxay baaban moodayay caawa haddii la xusaba mahadsan heeso iyo dhaantooyin iyo waxaas iyo muusig baa dadku ay jecel yihiin marka waa tixdatan waxaan mariyey markii ay dhalatay Jubbaland markay dhalatay baan tixdatan mariyey waxaan ka akhriyay xafladii hambaliyada ugu horeysay baan ka akhriyay halkan Jacob leeyahay iminka waan joojiyay gabayadii in yar laba kelmadood yaan oran karaa iminka laakiin kuwa ugu dambeeyay bay ahayd aad iyo aad baan u faraxsanahay inaan caawa halkan ka akhriyo gabayga beriga aan mariyay waxaana nidhi asadoo muwaafaqo dad helay meel u wada jeeda muraadkood ma waayaan horaa loo midiidimay muraadkood ma waayaan haddii loo midaan asad aan idiin sheega waa asad maxamuud haybe asad suldaan maxamuud haybe weeyaanoo aan gabayo badan oo horena aan ku halqabsaday hawlo badan oo aanu wada qabanan ay jiraan saa darteed baan waxaan ugu khaas yeelaa inaan gabayada isaga ku halqabsado asadoo muwaafaqo dad helay meel u wada jeeda muraadkood ma waayaan horaa loo midiidimaye midnimadan la helay haatanay noo macaan tahaye Jubbaland muddaba weyadii muran ka hognaaye mashaqadii dagaalada leed laysku mashaqadii dagaalada la eed laysma hoobiye dad munaafaqshiday waa ku guban muumin daacadahe lagartay maleegeen kuwii maanka laga qaaday mooradooda kama baaqsan iyo mahurtadoodii iminkay madluun wada yihiin murugo luudaane caalamkuna maxkamaduhu u furi waxay mutaysteen midkii go'ayna qabrigoo mugdi amasas ku daaqaane jahanamana wow madal waqood aan muddo lahayne afarta mushkulada raggii afarta mushkulada rag dhigay iyo masiirkoode hadal kalena waa maanta iyo xaaladaha muuqda ka fogaada mintidkii daraad madhixii uu reebay dadku waydin miisaamayaa meel uu joogabe war maleegta maanta libtii midug ku haysaane haddii kalese mooryaan wakhtigan soo mudhbaxay sheegta wasalaamu calaykum abwaan maxamed hiirad aad iyo aad buu mahadsan yahay gabayga qeyraha iyo qiimaha la uu noo jeediyey maartay aad baan kuugu mahadcelinaynaa haddana السلام عليكم دمانتين horta dhamaan aad baan idinka mahad celinayaa dhamaan dadkiina ka soo qayb galay shirkan aan ku soo dhaweynayno gudoomiyaha Jubbada Dhexe Jubbada Hoose Cabdirashiid Cali Gooni mahad gaar waxaan u sii dirayaa guddigii soo qaban qaabisay shirkan oo runtii qayb weyn ka qaadatay waxaan leeyahay congratulations you guys did a beautiful job waxaan kaloo mahad gaar ah u celinayaa Cabdirashiid Cali Gooni oo ah gudoomiyaha Jubbada Hoose oo Jubbaland oo runtii safar dheer inooga yimid inuuna siiyay timekiisa qaaliga ah inuu reer San Diego uu time la qaato oo uu warbixin ina siiyo oo sida isteedada uu siiyo kale inagana partkeena ina siiyo runtii aad baan ugu mahad celinayaa aniga personal Cabdirashiid Gooni waqti badan baan isnaqaanay ilaa markii Jubbaland dhismaheedu bilaabmay dad wada shaqeynayaan oo ahayn ilaa muddo 4-5 sano ah haddana aad baan ugu faraxsanahay inaan live ku arko it's my pleasure wax badan kolay dhihi maayo waxaan aan rabaa inaan arrimo yar ka hadlo oo muhiim ah xagga abaaraha
runtii Soomaaliya abaar aad u xun baa ka dhacay roobab badanna way da'een oo dhibaato badan bay u geysteen laakiin nasiib wanaag dadkii intoodii badneed wadamadii magaalooyinkii kale ee dhibaatada ka dhacday dadkoodii baa u kacay dhibaatooyinkii intoodii badan ka badbaadiyay oo dad badan ay ka faa'iideen laakiin anu waxaan arkaa Jubbaland dadkeedii runtii aynan aad ugu sii firfircooneen marka waxaan aad u rabaa aan codsanayaa inaan dhammaan dadkeenan aynu isku tagno oo aynu garab siino dadkeenan abaaraha ay ku rafaaday ee dhibaataysan runtii aad bay noo caawinaysaa waxaa kaloo jiraan barnaamij aniga aan wadaa jiray oo Cabdirashiid Gooni igala shaqeynayay oo agoomaha ah oo project aan muddaba ka soo shaqeynayna ah in agoonta la caawiyo agoonta Jubbaland aad bay u dayacan yihiin noocay doonaanba runtii ha ahaadaane dadkii ku dhintay ee agoomaha ay u noqdeenna waa dadkii u soo dagaalamay Jubbaland waa dadkii dhiigooda u soo daadiyay wiilal yar oo dhalinyaro ah baa ilaa hadda diyaar u ah dhiigoodana u daadinaysa inay Jubbaland daafacaan oo inagoo maanta qurbaha joogna oo nabad qabna oo dhibaato qabin inoo dagaalamaysa inaan dhulkeena ku raaxaysano caruureena mustaqbalka geysano marka fadlan aynu wiilasha yar caawino aynu dadkeena iyo dadka xagga jira xasuusano waa xil everybody saaran agoonta dadka dayacan abaaraha dad wax kasta waxa qof walba haduu xataa ceel yar meel uga qoro wax weyn bay u taraysaa dhalinyarada waxa loo baahan yahay waxbay barteen waxbarashadoodii ma aha kaliya inay Mareykan kaliya ay wax ugu qabtaan it's good inay wadankoodii iyo caruuroodii dadkoodii u baahnaa ay dib ugu celiyaan waxbarashooyin u furaan tababaro u furaan ayaguna halka ka caawiyaan runtii aad bay muhiim u tahay annaga dumarka xil weyn baa saaran dumarka xilka weyn ee saaran wuxuu yahay Soomaaliya maanta may taagnaateen haduuna dumar jirin marka dumarkii sidii ahaa hadaynu ay dumarkii hawshoodii yareeyaan ama gaabiyaan runtii wallahi Soomaaliya gabigeedu ma dhisnaanayso marka waxaan u baahanahay dumarku inay moor kacaan oo runtii hadda raggeena aad moodaaba inay moor naga firfircoon yihiin haddaan dumarka nahay inaynu garab istaagno oo aan hawsha la qabano oo meel ka soo baxno because waxa weeye next 10 years 20 years meeshaan ma joogayno caruuraheenii dadkeena waxay u baahan yihiin inaan wadamadoodii ku celino ama meel geyno marka qof walba niyadiisa ku haya dhalinyarada iba soo koraysa inay wadankan una wadankooda heena wadan iyo dad iyo caruur iyo reer ka dambeeyaan oo dadkaas inay empower gareeyaan oo ceelal u qodaan wax baraan anything inay waxbarashadooda dib ugu celiyaan ku fikiraan marka waana soo gabagabaynayaa intaan baan oran lahaa waxa kale ku dar lahaana waa Gooni aad baan ku soo dhaweynaynaa yaan ku maatantahay jalla Cabdirashiid Cali Kooni gudoomiyaha Jubbada Hoose ku soo dhawow anigoo ku hadlaya magaca guddiga qabanqaabada iyo dadweynaha degan San Diego inaad u jeedisid wixii war ah oo adigu diyaar ah la tahay ku soo dhawow jalla gudoomiye بسم الله وبه نستعين على أمره الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صوماليا هنولاتو صوماليا جبلان نوران إذن كنا مسؤولين تا سنادين تا دلن يرادا أقوان يهنكا هويوينكا يقبلها مدنية مروين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan rabaa marka hore inaan u mahadceliyo walaalihii soo awaasimay waqtigana geliyay siday u qabsoomi lahayd xafladan aadka u qurux badan sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahadceliyo walaalihii iyada oo maalin shaqo ay soo galayso waqtigoodii iyo shaqooyinkoodii iyo caruurihii u soo baylihiyay in ay ka qayb galaan qurxiyaanna madashan aadka u qurux badan la soo abaabul sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dowladeennan Mareykanka oo runtii ayaduna suuro gelisay haddii aad tihiin reer San Diego iyo haddii aanu nahay reer Soomaaliya gaar ahaan Jubbaland
inaynu caawa halkan isugu nimaadno haddii aysan suuro gelinina aysan suuroodeen aad baan ugu mahadcelinayaa runtii. iyadoo ay tahay maalin shaqo berrito runtii waqtiguna uu aad isu gurayo waxaan rabaa munaasabadan quruxda badan in aan isleeyahay dhowr kalmo oon isleeyahay munaasib bay ku tahay inaan ka soo jeedo idinlada wadaago haddii alla yidhaah. marka hore waxaan rabaa inaan idiin soo gudbiyo anoo ku hadlaya magaca dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland kayaga iyo gobolka Jubbada Hoose salaan aad u diiran oo idinka sido madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaan iyo dhammaan golihii xukuumadda iyo shacabkii reer Jubbaland. salaan kadib waxaan rabaa inaan marka hore si guud aan picture ama sawir idinka siiyo guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan Jubbaland. waad ogeydeen oo Soomaaliya markii laga bilaabo wixii ka dambeeyay 91dii waxaa la dhihi jiray Soomaaliya waa ummad isku afa, isku dhaqana, isku diina, isku dal ah, isku calana. 91dii markii la gaaray waxaad moodaa shantaa qodob ee sheegay in ay burbureen ama ay sarrifmeen. Soomaaliya waxaa ka dhaxeeyay dhul hadduu Raas Kamboni ka yimaado iyo hadduu Raas Caseer ka yimaado. dagaalkii 91dii wuxuu keenay in dhulkii la kala qoqobto oo la kala yeesho. waxaa ka dhashay magacyo fara badan oo laga soo bilaabo Somaliland, Puntland, Khaatumaland ilaa ugu dambeyn Jubbaland. magacyada badan baa ka dhashay dhulkii wuu sarrifmay marka. calan baa jiray buluuga oo Soomaaliya kulmiya. calankiina dabcan sida uu u sarrifmay dhulkii wuu sarrifmay. calamo badan ayaa ka dhashay. dabcan waxaa jirtay oo jirta diinta Islaamka oo laga soo bilaabo Nabi Aadan ilaa khaatimiyullaahi nabiyo calayhi salaatu wasalaam Nabi Maxamed soo jirtay ilaa haddana jirta. iyadiina waxaad moodaa inay noqotay tuu sarrifanto oo al-itixaad, al-sunna wal-jamaaca, al-ictisaam, al-shabaab ilaa in yawmal hada ay sii socoto ashi ay weli sii socoto. laakiin diintu waa mideedii wey. waxaa jiray afka Soomaaliga oo ummadda Soomaaliyeed hadduu Itoobiya joogo iyo hadduu Jabuuti joogo iyo waqooyi koonfur Kenya ka jooga hal luqadoo kulmisaa jirtay. iyaduna way sarrifantay dabcan. anigu Soomaali Norweji baan ahay, af Norweji baan ku hadlaa. idinkuna Soomaali American baad ku hadashaan. kuwa kale waxaa jira Soomaali UK ah, kuwa Soomaali Carab ah jira, Soomaali Koonfur Afrika. intuba waxay ku hadlaan luqado kala duwan. marka waxaa laga yaabaa ama dhacdayba wiilka anigu dhalay iyo ka uu dhalay Maxamed inay is afgaran waayaan oo midna Ingiriis ku hadlo midna Norweji ku hadlo. therefore luqadiina saasay u sarrifantay. dhaqanka Soomaalida iyadoo dhaqan bay lahayd soo jireena ismale sanaadiinle lagu kala dambeeyo talada qabiilka iyo talada ummadda Soomaaliyeed gooya xataa qofka mas'uul noqonaya ka tala bixin jiray. waxaad moodaa iyadoo dhaqanka inay sarrifmeen. halkii ugaas ama halkii suldaan ama halkii imaam ee la yaqaanay inay ka daba sarrifmeen konton kale oo suldaan ama ugaas ama haddii ilaahay kuu samagolaya imaam. dhaqankiina uu noqday mid bedelma oo ama dhaqan reer galbeed ama dhaqan carbeed ama dhaqan Afrikaan la qaato. waxaasoo burbura maxaa keenay marka? waxaasoo midnimo oo soo jirtay maxaa keenay inay burburaan oo sarrifmaan? dabcan qabiil baa keenay. Soomaaliya mid bay ahayd, waxa burburiyey waa qabiil. waxaan leeyahay marka halkaas
in aad ka qaadan kartaan khasaaraha uu lahaa midnimadu iyo qabiil la-aantu iyo faa'iidada ay lahayd midnimadu iyo qabiil la-aantu iyo khasaaraha uu keenay dagaalkii iyo qabiilkii aynu ku burburinay qarnimadeenni guud ahaan Soomaaliya waa kala guur xilli kala guur bay ku jirtaa marxalad dheerna way soo martay runtii from civil war nimankii warlordska ahaa diimaha haddii ilaahay ku ismay traditional government ku meel gaadhno ay soo martay maanta waxay maraysaa heer federalism bay qaadatay which is ama taasoo ku cusub oona ka imanin grassroots waxa la yiraahdo federaalka iyo waxaan kale la yiraahdo 4.5ka oo runtii aanan ka imanin grassroots ama yani basic Soomaaliya aanan ka imanin ee wax kor ka yimid international community iyo siyaasiga Soomaaliya inta isu tageen la yiri ummadda Soomaaliyeed maxaa la isugu keeni karaa maxaa lagu dhaqi karaa taas oo keentay runtii challenge ama caqabad ilaa hadda Soomaaliya hortaagan ama ay fahmin oo ka gudbin haddii aan soo qaado nidaamkan federalismka dowladda Mareykanku federaal bay ku dhaqantaa ama reer galbeedku laakiin waxay soo socotay ilaa 300 sano wada dheer bay soo martay waxay ka soo bilaabatay base-ka ka soo bilaabatay asaaska ka soo bilaabatay taasi waxay keentay ummadii inay waxay taqaano ay implement garayso ama ay fuliso Soomaaliya kama imaanin federalism kama imaanin waxay keentay dowladii federaalka iyo isteediyadii dhisnaa in uu ka dhasho challenge ayada dhexdeeda oo dagaal awoodda dowladda federaalku ha yeelato iyo awoodda ha yeelato dowladda maamul goboleedyadu ha yeesheen taas challenge-ga cayankaasi wuu ka jiraa waayo wax haduusan ka imaanin ummadda bayskeeda laguma guuleysto runtii waxaan jeclahay in ay ummadda Soomaaliyeed ay u bislaan doonto nooca federalismka oo isleenahay maanta xal buu u yahay ummadda Soomaaliyeed maadaama midnimadii iyo Soomaalinimadii iyo haddii ay ku ismugalayahay wadankeedii iyadu ay burburisay in ay federaal noqoto oo ummad walba haddana ay dib ka soo dhisanto iyadu oo gobolkeedii iyo statekeedii intay soo dhisato markaa iyadoo wax wata ay ula tagto stateki kale ama dowladda federaalka ay ula tagto inay gaari doonto insha Allah way qabaa waxaa jirta iyaduna mid guud oo jirta oo waxa la yiraahdo 4.5ka iyaduna ma ahayn basically ama asaas wax ka yimid shacabka Soomaaliyeed meel kasta joogo wuxuu ahaa mid iyadana la yiri ummadda Soomaaliyeed wax dambe u tahay oo dad kale ka yimid taas waxay keentay in ummadda Soomaaliyeed ee isku mid in la qaybiyo oo la yiraahdo 4 nin oo laandheera oo la yaqaano oo yaa waxay yihiin dad buuxa oo 100% dad Soomaali oo iyaguna xuquuqdooda leh in la yiraahdo waxa tihiin 5 baadin yani nin matid qof dhameystiran matid laba qof walaalo oo 9 kooda dhalatay oo same opportunity oo wadankii ka dhaxeeyo oo yaa la leeyahay half baa tahay caqabadaasna way haysataa ummadda Soomaaliyeed laakiin waxaan ku faraxsanahay in ummadda Soomaaliyeed intay fahanto dhibaatada uu leeyahay 4.5ku in ay soo saartay miiska oo tiri mar rabno 4.5 oo arintaas ka timid basic shacabka ay ka timid bal ay jiraan wali dad aan u bislaanin ama interest ayaga ha u ahaato ama haddii Ilaahay ku samagol yahay gacan kale ha ku jirto in ay diideen ujeedkii iyo codkii laga qaaday isteediyada ama maamul goboleedyada taasina ay wali tahay caqabad taagan oo Soomaaliya haysata waxaa jira wax la yiraahdo oo Soomaaliya guud ahaan ka jira challenge waxa la yiraahdo corruptionka adduunka wuu ka jiraa ama waxaan xatooyada la dhaho xoolaha dadweynaha ee qofka wixii lagu aamino ama qofka wixii loo dhiibay ka dhaxeeya ummadda oo qofku kaliya jeebka ku shubanayo waa caqabad haysata weeye
corruptionku waxaa keenay dadkii uu baahan yahay ninkii mas-uulka ahaa waxaa laga yaabaa mas-uuliyadda uu qaadayo inuusan u qaadin caqabadda iyo dhibaatada haysta shacabka Soomaaliyeed in uu ka saaro bal uu u tagahayo positionkaas in uu ka helo nacfi challenge taaga wey guud ahaan meel dheer bay ka timi Soomaaliya meel fiican oo runtii lagu faano oo caalamka iyo haddii Ilaahay ku samagol yahay saaxadii caalamkana ay ku soo noqotay way joogtaa waxaan dhihi lahaa marka ummaddu qofku inuu kufo ceeb ma aha laakiin waxaa ceeb ah inuu kici waayo Soomaaliyana uguma horreynin dad burbura ama dal burbura dabcan ugumana dambayn doonto marka waxaan aaminsanahay kufitaankii ay Soomaaliya kuftay way istaagtay laakiin ma dhammaystirin oo si xayi ah oo 95% ah umaysa istaagin laakiin waxaad moodaa inay soo toosi doonto generally haddaan halkaa uga baxo Soomaaliya aan ku soo noqdo maamul goboleedka Jubbaland runtii magacan Jubbaland la yiraahdo dad baa waxay moodaa inuu bilaabmay 5 sano u dambeysay ama 2 sano ee 3 sano u dambeysay inuu bilaabmay qaarkiin dabcan waxa laga yaabaa inuu og yahay qaarkiina inuusan ogeyn baa laga yaabaa magacan Jubbaland wuxuu bilaabmay oo la saxiixay 1896 heshiis ay galeen ugaas magan iyo ninkii Ingiriiska ahaa ee halka joogay kuna galeen goobta la yiraahdo goob weyn iyadoo qoraal ah oo saxiixii wadata ugaaskuna uu ku saxiixay suldaanka uu ku saxiixay Carabi ninkan Ingiriiska ahna uu ku saxiixay Ingiriis ayaa waxaan soo gelinay internetka taariikhdana waxaan ka helay Allah u naxariistee nin haliyay ahaayo waa dhaxa ku dhintay degmada Afmadow Umar Feen Allah u naxariistee markii anagu aanu nimid Jubbaland runtii waxaad moodaa ummadda Soomaaliyeed in laga qabsaday iyada anagu waliba anaga oo kaashanayna international community-ga iyo AMISOM markii aanu ka kicinay al-shabaab oo ahaa cadowgii ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan Jubbaland waxaad moodaa inuu istaagay ama uu kacay maas aad moodo in Soomaaliya laga qabsaday Jubbaland markii laga reebo dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland iyo shacabkeeda arrintaasi waxay keentay in uu ka dhaco gacan ka hadal mid dhaqaale iyo mid haddii Ilaahay ku soo goliyaa siyaasadeed iyo mid haddii Ilaahay ku soo military intuba inay yurub ka dhacay waxaa isu yimid oo doortay magaca Jubbaland mar labaad 800 oo ergo oo ka timid 3 gobol ee loo yaqaano Jubbaland oo ah Jubbada Hoose, Jubbada Dhexe iyo Gedo halkaas oo ay ku doorteen madaxweynaha marka labaad la doortay mudane Axmed Maxamed Islaan kadib markii uu kacay ama uu rays garoobay waxaan challenge-gan ama caqabadahani ka yimid ummadda Soomaaliyeed waxaana soo dhaxgashay oo raadisay heshiis dowladdan dariskana ee walaalahana ee Ethiopia taas oo uu ka soo baxay heshiiskii ama agreement-tigii Addis Ababa Accord taas waxaa lagu go'aamiyay 2 sano oo ku meel gaar ah 2 sano ee ku meel gaarka dowlad goboleedkan Jubbaland waxay qorshaysatay oo ay ka dhigatay muhiim dhowr qodob waxay ka dhigatay amniga inay sugto xoreysana
qaybaha ka dhiman Jubbaland laba waxay ka dhigatay maadaama Soomaaliya ay burburtay qabiil ay ku burburtay islaysay laga soo bilaabay 91 Jubbaland mar labaad uu ka dhacay gacan hadal in ay noqoto dawlad dib u heshiisiineed aysan noqonin una muuqanin dawlad sidii markii loo noqdo xukuumadihii ama maamuladii soo qaban jiray Kismaayo ama Jubbaland laga soo bilaabo 91kii Cumar Jees iyo Morgan Barre haddii ilaahay ku sumgulay maxaakiimtii haddii ilaahay ku sumgulay u dambeysay shabaab waxaanu go'aansanay inaanu noqono aanu Soomaaliyana u noqono form model waxay ku dayato kana duwanaano dadka hore ee soo maamulahay Jubbaland waxaanu fidinay gogol Soomaaliyeed oo ah dhammaan reer Jubbaland in ay ka soo qayb galaan gogoshii ugu horeysana waxaa fidiyay madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Maxamed Axmed Xasan Islaan shirkii ugu horeeyana waxaa lagu qabtay Addis Ababa waxaa lagu qabtay Muqdisho shirkaasi markuu dhamaaday madaxweynuhu wuxuu ku baaqay wax allaale wixii Jubbaland ah ee mucaarad ah in aynu isugu tagno gurigeennii waxaa ku yimid heshiiskaas ama gogoshaas dad badan oo maanta taqaanaan oo mas'uuliyiinta Jubbaland ah sida Suldaan Cabdiqaadir Luga Dheere oo madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland sida haddii ilaahay ku samagol yahay Baaley iyo Baasta iyo Buraale iyo dadkii noocaas ahaa oo dhan oo shalay ahaa mucaaradka Jubbaland ayaa ku yimid heshiiskaas maantana ka mid ah xubnaha ugu sarreeya ama baarlamaanka ahaadeen ama xukuumadda Jubbaland ahaatee gogoshaas la furay maalinkaas la fidiyey ilaa maanta way fidsan tahay tii ugu dambeysana waxay ahayd tii Barre Hiiraale oo u dambeeyey mucaaradka iyo dadkii Soomaaliyeed kale mucaaradka ahaa inay muddo hadda laga joogo bil ay ku saxiixdeen magaalada Kismaayo dawladda Jubbaland iyo mucaaradkii ka soo horjeeday Barre uu hogaaminayay waxaan idin sheegayaa marka inay gogoshaasi furan tahay cid ilaa ay Jubbaland gacanta iska qabsatana ay furnaan doonto haddii aan leeyahay maadaama ay dib u heshiisan tahay dawladdan waxaa kale oo qodob noo ahaa in la hormariyo ummadii sida aan la soconnana maadaama meeshan Jubbaland ay ahayd dagaalkii sokeeye meelaha ugu aafada badan ee dhibka badan ee dagaalka sokeeye uu ka dhacay ay ahayd waxaad garanaysaan meel intaas 23 sano dagaalka socday dabcan inay burburayaan dhammaan kaabayaashii dhaqaalaha wadooyinkii haddii ilaahay ku dagaamadii warshadihii beerihii webiyadii kulli inay burburayaan taas waxaanu bilownay in aanu shacabkii horumarin u samayno ama aan ugu yeedhno international community-ga ama aan ugu yeedhno Soomaaligan qurbaha joogta sida idinkoo kale oo runtii qayb lixaad ka qaatay horumarinta iyo taageeridda Jubbaland runtii maana gaadhin meeshaan rabnay laakiin meel aan ku faarin karnaan joognaa runtii haddii aynan wada jirin oo inaan nala jirin oo aad saboodkiina aad iyo codkiina iyo waqtigiina ayna bixin lahayn annaga kaliya wax maana qabaneen Soomaalidana waxay ku mahmahdaa gacmo wada jir bay wax ku gooyaan waxaan jira marka in wax la isweydiiyaa fiican maxaa annaga nalooga baahan yahay haddii aanu nahay mas'uuliyiinta iyo shacabka Jubbaland ee jiray gudaha maxaase idinka haddii aad qurba joogtihiin oo aad ku nooshihiin qurbaha dad Soomaaliyeedna aad tihiin ama Jubbaland ka imaada ama Puntland ka imaada ama Somaliland ka imaada ama Xamar ka imaada meel kasta ka imaada dad Soomaaliyeed aad tihiin wadankiina aad ka soo tagteen maxaa la idinka baahan yahay annaga ka Soomaali ahaan gudaha haddaan joogno waxaa nalooga baahan yahay kow in aanu amniga sugno in aanu ummadii Soomaaliyeed midayno in aanu ugu yeedhno shacabka Soomaaliyeed meel kasta uu joogo wadankooda inay dib ugu soo noqdaan waxaan idin sheegaynaa inaanu nahay katrabil inaanu nahay anagu meel cidla ah oo haddii ilaahay ku samagul yahay aysan waxba jirin oo geeda waaweyn iyo qashin
iyo haddii ilaahay kuusa abeesooyin iyo wax walba yaallaan in labada dhow inaan ka bilowna annagu hawshii gaar ahaan annagu haddaan nahay reer Jubbaland. waxaan u leeyahay gaar ahaan annaga reer Jubbaland waxaad moodaa inaan ka duwannahay maamulada kale ee Soomaaliyeed. haddii laga soo bilaabo Somaliland waxay tiri Soomaali ma nihin waan ka go'na. waxaadna moodaa dad isku sinji oo la isku tirin karo inay u yihiin majority. mar labaad Puntland waan ku ammaanayaa ma aysan marin wadadii ay martay Somaliland oo ma aysan dhan waan goosanay laakiin waxay tiri waxaan nahay maamul goboleed Soomaaliyeed oo la yiraahdo Puntland. laakiin haddana waa dad ayaduna isku dad oo la isku maartay ayagu laftooda 90% isku sinji away. galmudug iyo waxa soo dhanimo annagu runtii waxaanu nahay meesha kaliya ee tiri waxaanu nahay Soomaali. Jubbaland waxaa iskale Soomaali meesha kaliya ee tiri baana waa meesha kaliya ee maamulkeeda ugu sareeya ee golaha xukuumadda laga heli karo qabiil kasta oo Soomaali ah. hadduu Bantu yahay Jareer hadduu yahay haddii uu Hawiye yahay haddii uu yahay Daarood haddii uu yahay Isaaq iyo haddii uu yahay qolo walba hadduu yahay waa dawladda kaliya ama maamulka kaliya ee laga heli karo qabiil kasta oo Soomaali ah. maxaan u dooranay inaan saa yeelno in aanu dhahno Soomaali baa iskale dhulkan maxaan u dooranay waxaan u dooranay waa dhul Soomaaliyeed. Soomaaliya goortay Soomaaliya ka leeyahay annagu ma garanayno waxaan qabiilka ahliga jaahilnimadan iyo reer guuraanimada ay keentayna waxaan aaminsanahay in laga bixi doono oo midka waqooyi ka yimaada kan ka yimaada DDC kan ka yimaada Kenya kan Ras Kamboni kulliba in ay isu socon doonaan yoomul maalin ka mid inay isu socon doonaan. waxaan kaloo u niri wadankan Mareykanka aad joogtaan waa 300 milyan wey waa madow waa wixii kale ee laga roolayaasha lagu sheegay waa indhayar waa Muslim waa Christian waa Yuhuud ama Jewish waa Buddhist yani wax Ilaahay abuuray oo dhan baa jooga Mareykan haddana way wada nool yihiin. annagu marka waxaanu rabnaa Soomaali oo dhan diversity-geeda oo dhan in Jubbaland laga helo si aan horumarka reer Mareykan ay gaadheen aan u gaadhno. waayo anoo Soomaali heli kara oo international community heli kara oo kii aqoonta lahaa heli kara maxaa de igu xidhay daasad yar oo qabiil maxaa igu xidhay waxaa loo baahan yahay caqli inuu shaqeeyo waa midda aan u dooranay in aanu noqono aan kaga duwanaano gobolada kale iyo isteedyada kale ama meelaha kale ee Soomaaliya ay joogaan inaan kaga duwanaano. runtiina meel fiican baanu ka gaarnay horumar fiican baanu ka gaarnay waayo muddadii yarayd ee 2 sano ahayd ee ku meel gaarka ahayd ee caqabadihii iyo challenge-yadii aan idin sheegay ayna soo mareen haddana horumar baan gaarnay runtii. maxaa keenay dadka diversity ee kala duwan ee Soomaaliyeed ee Soomaaliya oo dhan ka kooban oo nin walba shaqadiisii iyo cilmigiisii iyo aqoontiisii uu gelinayo dhulkiisii amnigii uu sugayo horumarkii uu ka qayb qaadanayo aqoontii uu keenayo maalgashigii uu keenayo kuwa waxaan hadda maal gashanaya ka yimid Banaadir ka yimid Somaliland ka yimid baa maal gashanaya Jubbaland markay arkeen amniga iyo kala qaybsanan la'aanta iyo isugu yeeritaanka ummadda Soomaaliyeed markay arkeen ayay maal gashanaya intay ka yimaadeen Xamar iyo haddii Ilaahay ku sima geliyo Jowhar iyo gobolada dhexe iyo Puntland intay ka yimaadeen iyo Jubbaland iyo Kismaayo iyo Doobley iyo Afmadow iyo xeebaha Badhaadhi iyo Kudha ayay maal gashanayaan intaana ay soo dirahayeen codsigooda inay maal gashadaan. waxaa kale oo muhiim ah in la xuso
maxaa su-aal baa iman maxaad qabateen intii aad joogteen meesha dabcan wax badan baan qabanay kow waxaan la tartannay oo hadda aanu isku meelba marayna haddaanan ka hormarin maamul goboleedyadii soo jiray ee establishka noqday sidaas Somaliland iyo Puntland ayaad moodaa hadda aanu la tartamayno annagoo runtii khibrad badan iyo waddo dheer ay soo martay dowlad goboleedkan Soomaaliyeed ee Puntland kaga dayanay ama aanu u dirno shaqaale badan inay noo tababaraan maadaama 17 sano 18 sano ay jireen dad garab taagnaana ay ahaayeen maamul garab taagnaa dabcan shaqaalaha annaga iyo meelaha annagana way noo tababaraan waddo dheer ay soo mareen ayaa annaga waxay noo noqotay inaanu meel shortcut aan ku samayno waxa ay soo mareen ka leexano kadibna meesha ay ka qabteen aanu ka qabano runtii waxaa ka mid ah waxyaalahan qabanay waxaa ka mid ah annagu waxba maana dhaxlin warqadaas ee foorka ah iyo qalinkaa lagu qorayo maana dhaxlin waxaan dhaxlay ummad burbursan iyo dal burbursan hadda markii sandiyaga maanta aan arkay odayaasha reference bay idin yihiin runtii mid generaal ah oo ciidankii ah mid pilot ah mid doctor ah mid waad haysataan reference ba haystaan aysan haysanin Soomaalida kale aan ku soo arkay meelaha kale ee isteediyada kale ee Mareykanka annagoo reference-ka xataa ma helin odayaashii noocaas ah ama dadkii hore ee soo shaqeynayay ma helin haddana ma aanan noqon kuwa niyad jaba oo yiraahdo war waxba ma bilaabi karna aynu fariisana ma noqonina waan bilowna shaqo laga soo bilaabo guriga madaxtooyada hadda ee dawladdu ku shaqeyso ilaa midka ugu hooseeya ee xaafadda kulli dad baa haystay waa lagu jiray xageen fariisanaa dhaqaale ma hayno challenge-gii iyo wixii dhibkaan soo sheeganayna wuu nagu socdaa dabcan waxaan nina waraan isku tashanno talaan gaadhnay inaanu bilowno ninbaa waxaa leeyahay fallaadh baa midna waxaa laga taagay isha midna xagga dambaa laga taagay wartee lagaa bixiyaa si war middan dabada iga bixi aan fadhiistee war si aynu u fadhiisanno aynu dadka ugu shaqeyno bal horta xafiisyada dowladda aanu ka dhaxalay dowladdii dhexe ee siyaad bar Allah naxariiste bal gurihii dundunsanaa aynu dayactirno dadkii aynu u shaqeyno waan ku guuleysanay madaxtooyada dad baa ku jiray caymiskan hadda baarlamaanku fadhiya ee madaxweyne ku-xigeenka deegaankiisa ah xarunta gobolka Jubbada Hoose wasaaradihii oo dhan kulli waan ku guuleysanay dabcan haddana waxaan ku guuleysanay inaanu dayactirno dekadii oo xabaalan oo ah meelihii ugu badnaa ee Jubbaland dhaqaaluhu ka soo geli jiray airportkii oo dayactirno dabcan waxay noqotay marka in ay socoto sidoo kale waxaanu midaynay oo isugu yeernay shacabkii shalay kala qoqobnaa iyaguna waxay bilaabeen inay mashaariic iskooda iyo NGO-ya ay abuurtaan waxaa bilaabmay in qaxootigii uu dib u soo noqdo intaasoo dhan maxay ku yimaadeen waxay ku timid wada shaqaynta shacabka iyo dowladda oo runtii muujisay cadaalad waayo haddaysan cadaalad jirin Jubbaland inta badan idaacadaha iyo website-yada iyo fadhi ku-diriyada iyo waxaan ka maqli jirnay Jubbaland dadka waa lagu gowracaa xeebtii baa soo caariday dadkii waa la laayaa laakiin si idinkuba aad ka markhaati kacaysaan waxaa dhacday 2 nin oo muwaadiniin oo Soomaali ah in ciidanka Jubbaland ay dileen si khaldan ay u dileen 10 nin oo dadkii ugu qaalisanaa ee ciidanka Jubbaland ayay maxkamadda militariga xukuntay 7 ka mid ah way la tagtay taas waxay muujinaysaa cadaalad inay dowladdan Jubbaland ay raadinayso waxaa kale oo ah inaan Soomaalinimada raadinayno waxaad xasuusataan mudane Axmed Maxamed Islaan goobo badan oo ummadda iyo madaxda Soomaaliyeed ay isugu timid hadallo badan uu ka jeediyay ama ficilo badan uu sameeyay oo hadda ragga qaarkii ay sheegayeen waxaa ka mid ah markii madaxda Soomaaliyeed ay luqadii af Soomaaliga ee inta yar ka saarsaneed inta nin walba warqad la soo baxay ku hadlay Ingiriis wuxuu ahaa shakhsiga kaliya ee yiri war meesha CNN ma joogo SBB na ma joogto dad Soomaali madaxda Soomaaliyeed baan nahay waxa aan la hadlaynana waa dad Soomaaliyeed maxaynu af Soomaali uga hadlaynaa
waxay ahayd madasha kale markii ummadda Soomaaliyeed madaxeedii la isu keenay toddobadaas inay wadanka u talisay ee la isugu keenay Kismaayo waxay filayeen in calamadii isteediyada la suro Jubbaland madaxweynaheedu uu diiday wuxuu yiri calankii buluuga ah baa inuu filan calanka buluuga aynu saarano haddii aynu Soomaaliland qodob kale muhiimka runtii rabo inaan idin sheego idin la wadaagno waxa kamid ah markii shirka isaga shirka ka tashiga ummadda Soomaaliyeed ay ka tashiga ahayd waxaa yimid wafuud badan oo ka socota wadamada caalamka deriska iyo internationalka wuxuu soo jeediyay in ummadan madaxda Soomaaliyeed ay tashan iyaguna ay iska tagaan midda ugu dambaysa waxaa weeye waxaa noo yimid xilli aan dheerayn prime ministerka Soomaaliya mudane Sharmaake yaa Kismaayo noogu yimid marka iyadana waxoogaa xinif baa waxay naga dhaxaysay dowladda federaalka iyo annaga baarlamaanka markay inkireen iyo adigoo Cabdirashiid prime ministerka mudane Cabdirashiid baa naloo soo diray madaxweynuhu hadal uu jeediyey waxaan ka xasuustaa inuu yiri waxaan ka xishoodaa markii madaxweynaha dowladda federaalka iyo annagoo dowlad goboleedyada intaan garab istaagno loogu yeero madaxweynaha hebel kulligana markaa madaxweynada noqono madaxweynaha dowladda federaalka uu taagay yaa ka xishoodaa buu marka taa waxaan jeclaan lahaa in la bedelo waxaan ka yaabaynaa Soomaalinimada aan raadinayno iyo meesha aanu riigsanayno in aanu eedno Soomaalidu ayna dhahdo dadkani Soomaali bay jecel yihiin maxay Soomaalida u jeclaadaan nalagu dilo aad baan uga cabsanaynaa haddaan reer Jubbaland idinkoo mahadsan annagu waxaan idin ballan qaadaynaa haddii aan Jubbaland ka gobol ahaan wadankii waa la maal gashanayaa waxaan rabnaa wadankii inaad ku soo noqotaan waxaan ballan qaadaynaa laba qodob annagoo Ilaahay kaashanayna kow amnigiina inaan sugno oo sida kuwaas labadan in khaladka lagu dilay cidii khalad dad ku taabata in tiirka la soo taago waa idin ballan qaadaynaa amnigiina idinka iyo maalkiina waxaan idin ballan qaadaynaa meel kasta oo rabtaan inaad ka maal gashataan dhulkiina in aanu diyaar idin lahayn inaan idin siino waxaan rabaa marka idinka ka Somali American San Diego ama guud ahaanba maxaa la idinka baahan yahay waxaa la idinka baahan yahay dalkii uu burbursan yahay dhibaatooyin badan iyo challenge badan oo ka jira hadday waxbarasho tahay hadday biyo tahay hadday wado tahay haddii Ilaahay ku isma gulay nalkan hadda ifaya socda male wadankii waxaa la rabaa kow inaad u soo noqotaan intaad iska soo orodaan inaad timaadaan lama rabo yes waxaa la rabaa kow in dhalinyaraa jirta fara badan jiilka hadda jira 18 ilaa 15 u weyn yihiin dowladnimo waxay ka yaqaanaan male waa dadka hadda loo isticmaalayo in ay ka qayb galaan dagaaladan shabaabka ideology-na ma aha laakiin waxaa u geynaya shaqo la'aan baahi baa u geynaysa badii bay galayaan oo ku dhamaanayaan waad aragteen waxaa u geynaya aqoon la'aan dowlad iyo maamul iyo haddii Ilaahay ku sameeyay calan ay ku intifaacsadeen oo arkeen ma jiraan xabad bay ku barbaareen iyadoo wax la dilay arkeen iyadoo la qaxay arkeen waxaan rabnaa dadka inaad badbaadisaan sidaad badbaadinaysaan laba qodob waxaan rabaa bahalahan Facebook la gelinayo qofka intuu gaari qurux badan iyo meel cagaar intuu tago uusan haysanin oo intuu sawiro uu gelinayo please hala yareeyo markii taa aad daysaan aad sida dhabta ah ee qurbaha laga jooga aad sawirtaan oo geysaan anuu qurba joog baana meesh xun way qurbo waxa weeyaan wuu ku dilayaa mentally iyo physically labadaba wuu ku dilayaa maskaxaan iyo jir ahaan wuu ku dilayaa waliba Soomaaliya haddaynu nahay wuxuu noo dilayaa kow Soomaalidu waa reer guuraa way socotaa waxaa laga yaabaa inuu iska soo dhiibo Italy inuu iska soo dhiibo oo Mareykanka yimaado oo haddana koob iyo kontonka isteeda Mareykanka inuu haddana dib uu guuro
oo haddana uu dib u noqdo oo ilmihii haddana uu dhaho Soomaaliya ku celi wuxuu ku keenayaa confuse qurbahaas dhibaatada aad ka marteen inaad sawirtaan oo u gudbisaan kuwa gudaha jooga yaa loo baahan yahay laakiin inaan intaan isku sawiro gaari madooban anigu aanan lahayn iyo meel qurux badan anigu aanan lahayn oo jardiino dad quruxsan intaan isku sawiro aan dhaho cheese iyo cool midda inaan joojisaan barna midda kale waxaan rabaa inaan joojino dadkaas sidaan ku joojinaynaa shaqayno oo abuuraynaa ma inaad noo shaqo tagtaan marka idin leeyahay dabcan yes laakiin waa jidkee wey waxaad samaynaysaa shaqaad abuuraysaa halkan aqoon baad ka dhaxashay haddii xataa aadan waxna qorin waxna akhrinin laakiin dadkani siday u nool yihiin qaabkay u shaqaynahayaan amniga ay ku jiraan yaad dhaxlaysaa oo indhahaaga keliya ku dhaxlaysaa tii baan rabnaa inaynu ku abalay garayno Soomaaliya oo geyno inaad geesaa loo baahan yahay waxaynu rabnaa intaynu 5 6 7 qof isu tagno oo min 5 kun isku darsanno hal warshad oo biyaha nadiifta ah samaysa inaynu geyno oo adiguna wax ka helayso aad wax ka helayso warshada waxa ka shaqeyn 10 qof oo dhalinyaro ah ka shaqeyn 10 ka dhalinyarada markay $200 bisha ay qaataan halkii 100 waxa ku noolaanaya 10 kala ku noolaanaysa soo shaqa abuurmay saasa shaqa lagu abuuraya laakiin haddii inta soo ordada wasiir baan doonanayaa agaasiman doonanayaa maya idin ma siinayno unless waxaan siinaynaa qofkii ku soo talagala xasuustana in deyn lagu leeyahay deynta lagu leeyahayna inuu contribute gareeyo oo gudo deyntaas baa lagu leeyahay waxaan filayaa intiina badan hadda saraakiil iyo agaasimayaal iyo maareeyaal iyo kulli waa soo marteen iskoolkii Soomaaliya markii laga soo bilaabo galaaska koobaad ilaa jaamacadna lacag laan baad ku dhigateen yes xagay ka yimid dhaqaalahaas xagay ka timid aqoontaas xagay ka imanaysa scholarship baa la isu diray xagay ka imanaysa canshuur laga qaaday bay ahayd hooyo Soomaaliyeed iyo aabba Soomaaliyeed tii baad wax ku baratay Yurub baad timid galbeed baad timid amni baad heshay haddii la kusoo dhaqaalaad heshay nolol baad heshay islaantii carruurtii talaagadood u buuxisay ayadii shaqa u dirtay aadna shaqaad heshay ilmihii waxbarasho ku haystaan caafimaad bay ku haystaan saddexda cudur ee dilaaga way ka badbaadeen waxbarasho la'aan iyo jahli baalka cudur iyo kii kale muxuu iyo amni darro saddexdaas yaa dilaa saddexdii way ka badbaaday haddana ayadii baad la fariisato waxaa tiri ama isagii baad la fariisatay oo nin qoys baad noqotay deyntii lagu lahaa aawe kii askariga ahaa sargaalka aawe wixii uu ku soo bartay iyo xilkii uu qaaday kitaabka uu maray uu yiri wallaahi billaahi tallahi ummadda Soomaaliyeed calanka Soomaaliyeed baan difaacay badbaadinaya awada dhaarti xagee buu geeyay ma Mareykan baa u baahan waa inuu contribute gareeyo way ka shaqo waan siinaynaa hadduu intuu yimaado uu 3 sano 4 sano 5 sano ku talagalo challenge-yada jira inuu wax ka bedelo hadduu ku talagalo dabcan shaqo uu heli automatic shaqo uu helaya kii aqoonyahanka dhakhtarka ah Mareykan baa u baahan maya waddankiisa baa u baahan wax ku bartay dhakhtarka iyo askariga wax dhaarta jira adduunka oo gacanta kitaabka saara dhaartay mareen kii dablaha ahaa iyo kii generaalka ahaa kulli Mareykan iyo Yurub bay joogaan oo la fadhiyaan cilmigii aqoontii iyo reference-kii baaba'ay la rabay inay geliyaan askartii iyo dadkan haddii la markii digtoono la yiraahdo xagga dambe u jeedsanay where is it kii jaamiciga ahaa waxyaalaha sarfmeen ka mid waxaan waayay oon anigu ilaa hadda aan raadinayaa wixii ahaa askarigii dablaha ahaa nin kasta oo Soomaaliya askariga markaa aragtid gaashaala dhaxa ugu yar gaashaala dhaxana gaashaala sarana general bana kii aqoonyahana aragtid waan waayay nin yiraahdo secondary baan ka soo baxay ama dugsi dhaxan ka soo baxay kulli waa wada doctor way PhD master BS ba kulli wada waastaan ninkii dugsiga dhexe iyo dugsiga sare ayaan kusoo qaxay mise Soomaaliya kulli waxay wadayd baalkii maya Soomaaliya waxay ku badanaa beeqaan darana
war waxaasoo doctor iyo waxaasoo generaal iyo waxaasoo doctoraysaanu haynaaye haddana dadkii maxaa wax loogu celin laaya loogu xulin laaya yes waxay sababta ku timid baa idiin sheegay marka caqabadahan iyo waxaan kulli waxbaa base u ah and what is that waxa weeyaan ilaahay wuxuu ku siiyey dhul dihin oo baddii leh oo webigii leh oo xoolihii leh oo khayraadkii natural resourcekii sida gaaskii iyo uraniumkii iyo waxyaalihii kale ee faraha badnaa ee ama badda ha ku jira ama beriga ha ku jireen oo dihin buu ilaahay ku siiyey wuxuu ku siiyey qorax 12 bilood socota oo baraf lahayn oo dabayl baas lahayn haddana wuu ku doortay hal qoomiyad buu kaa dhigay hal af ku hadasha oo hal dhaqan leh oo haddana wuxuu ku gooyay dhul ilaahay intaas maxaa tidhi waan ka gaajoonayaa baa tidhi waad ka gaajoonaysaa ciqaabtaasaa kugu dhacda haysata Soomaali waxaan leeyahay marka Soomaaliya waxaan aaminsanahay in ay loo shaqayn doono dib loogu noqon doono haddii ilaahay kuu samagoliyo khayraadka iyo intifaacana loo shaqayn doono idinkana reer Mareykan waxaan idin leeyahay war codkiina dalkan waad ku dhalateen kumada dhalan waad ka mid noqoteen waddankana hal mar baa la yimid war si aad wax ugu celisaan waddankii codkiina ku gorgortama idinku isdoorta markii codkiina ninkan la dooranaya siyaasadahan ka socda aad ku gordonto dhadid 350 kun baa ku nool San Diego 50 kun baan ku dooranay maxaad u qaban community-ga San Diego maxaad u qaban wadaan waa idin kula dardaarmaya waxaan idin kula dardaarmaya hadda xilligan aan joogno xilligii calanka la ruuxayay aan lahaydeen Jubbaland durbaanka la garaacay waxaan rabnaa inaan ka gudubno ficil u gudubno seen u gudbi karnaa hal charity samaysta jaaliyada Jubbaland waa la dhisi waa la iimanaya hal sanduuq samaysta qaaraanka iska qaada bil walba waxaad iska qaadaan waxaad idinku qoondaysataan hal meel ku rida Soomaaliya wafd kasta oo idin yimaado si aad u soo dhawaysataan si kiina dhinta aad u xabaalataan si wixii kasta abaaruhu markay dhacaan aad uga qayb qaadataan hal meel samaysta oo accountability and transparency leh oo hal qof jeebkiisa ku dhicin inaad samaystaan waan kula dardaarmaya ilaahay inaad ka cabsataan oo toobad keentaan isna cafidaan nabada kula dardaarmaya qofku markuu qof bini aadana cafiyo oo seexdo isagoo seexanayo uu ilaahayow hebel oo maanta fadhi ku dirirka aan isku caynay waan u xanaaqsanahay waan cafiyey darta آخرنا وحين هذا هي جنة الدنيا انتفاع بوليه بعد ما سنتي دقيسي إني وقت قالي سيسن يقولنا على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه قدوميها ومحسن هاي خطبة قاية هي قيمة لهذا نوجوجي وخطبة حلقة أنا أقول برضو أنت سان دييغو جوجي ولي ما أركين نين Soomaaliyeed oo qaabka gudoomiyaha u hadlay ma aqaan oo hadlay ma arti ama meel kale aan ogeeyay ma